magaalooyinka ay maanta ka baxeen shaqaalaha hay'adda MSF ayaa waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maanta diyaarad gaar ah ay u qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ilaa 8 shaqaale ajnabi ah oo ka tirsanaa hay'adda MSF Switzerland ee gacanta ku haysa cusbitaalka magaalada Beledweyne oo goor dhaweydii xaqiijiyay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Beledweyne Dr. Maxamed Xuseen Xalane oo intaa ku daray in xaalad degdeg ah oo arrimaha ammaanka la xiriira awoodda shaqaalaha si loo qaaday isagoo sheegay in uu caafimaadka ay sii wadi doonaan shaqaalaha Soomaaliya sidoo kale hay'adda MSF Belgium oo in muddo ka howlgalaysay magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa iyana goor dhaweyd ka baxday gobolka Galgaduud sida uu BBC u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Gurceel Cali Sheekh hay'adda MSF Spain oo la caafimaad iyana ka wada jirtay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa iyana ka mid ah hay'adaha ka baxay gobolada dhexe ee Soomaaliya waxaana 12 ka mid ah shaqaaleeda shalay ay ka qaadatay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe sida uu BBC u sheegay Cabdullaahi Weheliye Caadle oo ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kale maanta meelaha ay ka baxeen dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Gaalkacyo Xudur Afgooye Diisoor Mareere iyo Jamaame oo ay ka fulinayeen gargaar caafimaad oo lacag la'aan ah waxaana ka daadguraynta shaqaalahan hay'adda MSF lala xiriirinaya inay ka dambeysay qarax toddobaadkan lagu dilay laba ka mid ah shaqaalaha hay'adda MSF Holland oo ka howlgalaya magaalada Kismaayo taasoo isla maalintaasba keentay shaqaalahaasi ay hay'addaasi kala baxdo magaalada Kismaayo kabixitaanka shaqaalaha hay'adaha aan dhaqaatiirta aan xuduudka lahayn ee ka howlgalaya bartamaha iyo koonfurta dalkan Soomaaliya ayaa kabixitaankooda waxay dhabarjab badan ku noqonaysaa dad aad u fara badan oo bukaano kala duwan qabay kuwaasi oo qaarkood ay yaalaan cisbitaalada qaarkood iyagoo waliba qaliin lagu sameeyay ayaan la Xuseen Cabdi BBC Beledweyne